basbaasku ugu caan baxay kuleyl laakiin waxa ku jirta faytamiino iyo macdano jirka wax u tara waxaana ugu horeeya vitamin C, vitamin B6, vitamin K, vitamin A iyo potassium. waxa intaasi sii dheer in basbaasku uu xambaarsan yahay walxo dawo ahaan loogu isticmaalo cudurro dhowr ah. walxahaas oo qaarkood basbaaska oo kaliya laga helo waxaana ugu caansan maadada capsaicin oo hadda laga sameeyo dawooyin iyada oo loo adeegsaday cilmi baaris dheer. waxa basbaaska loo adeegsadaa in lagu daweeyo xanuunadan hoos ku qoran xanuun baabi'iye ahaan. maadadan capsaicin ee laga helo basbaaska waxa ay xambaarsan tahay awood ay ku yareyn karto xanuunada khaasatan xanuunka neerfaha ka dhasha waana sababta keentay in maadadan laga sameeyo kiriimyo loo adeegsado xanuun baabi'iye ahaan oo loo yaqaano capsaicin bumata. xanuunka lagu daweeyo bumatadan waxa ka mid ah in miisaan dhimista loo adeegsado cilmi baaris lagu sameeyay basbaaska. waxa lagu ogaaday in uu gubo amba yareeyo baruurta amba xayrta ku jirta jirka. waxa kale oo uu kordhiyaa isticmaalka tamarta jirka ku kaydsan. laakiin waxa ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in basbaasku waxtar u leeyahay cayilka markii loo adeegsado amba lagu daro talaabooyin kale oo miisaan dhimis ah. caafimaadka wadnaha basbaaska waxa ku jira maado kale oo loo yaqaano kayna waxayna maadadaasi hoos u dhigtaa kolestaroolka waxayna ka hortagtaa xinjiroobista dhiigga. waxa kale oo imisha guntimaha dhiigga waxayna hoos u dhigtaa wadna qabadka baaluga iyo xinjiroobista dhiigga xididada sanbabada. basbaasku waxa hawo mareenada uu ka sifeeyaa amba uu ka nadiifiyaa khaaqada. sidaas daraadeed dadka xaakadu ay ka soo go'ilaadahay marka ay qufacayaan waxa lagula taliyaa in ay cuntada basbaaska ku darsadaan. sare u qaadista difaaca jirka basbaaska guduudan waxa uu u roon yahay amba uu u fiican yahay xanuunada bakteeriyada keena ee ku dhaca sanbabada sida oof wareenka iyo buruntiitada. ka hortagga kansarka cilmi baaris dhowaan la soo daabacay waxa lagu sheegay inuu basbaasku yareeyo halista cudurka kansarka ee ku dhaca qanjirka ragga. sonkorowga nooca labaad dadka qaba sonkorowga nooca labaad waxa lagula taliyaa inay basbaaska guduudan ku dadaalaan maadaama laga arkay inuu firfircooni ku abuuro ganaca hormoonka silitoonka kadibna sonkorowga loo yareeyo. waa maxay khasaaraha basbaasku? waxa uu basbaasku keenaa kuleyl iyo hanbab haddii maqaarka amba indhaha korkooda gacmaha laga saaro adiga oo kuleyl kule. basbaasku waxa uu siyaadiyaa laabjeexa iyo calool hurka marka uu qofku ku cusub yahay. laakiin waxa la arkay markii la joogteeyo nabarada gaas calooleedka uu dawo u yahay. waxa jirta fikrad ay dad badan qabaan aan cilmi ahaan lagu arag markii dhowr cilmi baaris la sameeyay taas oo ah in basbaasku uu xiriir la leeyahay babaasiirta. waxaana cilmi baaris ahaan lagu ogaaday inuu babaasiirta aysan wax xiriir lahayn basbaaska. basbaaska kee ugu faa'iido badan? basbaaska waxa ugu faa'iido badan basbaaska guduudan ayaa ugu faa'iido badan una ka caafimaad fiican yahay kan cagaarka ah amba jaalada ah.